بسم الله الرحمن الرحيم نبض أرضنا ملك استون نجلا سعوتان هل كني والصومالي أكاديمي وأرضنا رنتي ملك استون شوكتان وين السلامينا ما أنت هالكم وحين كوب بينا مادة كميدا مادوين كدوكسيكو حوصل بحلو قاطو وأنا مادة الساينس كا مادة الساينس كا مركز يكتب دوكسيكو حوصل ده هو مادة سكول دفن أو يعني هيك ترجمة يصير دمان مادوين كوساينس كوكوبين هاي hadday tahay maada ka hadlaysa dhinacii nolosha hadday tahay maada ka hadlaysa dhinacii walxaha dhulka dushiisa yaala iyo habdhaqanka ay leeyihiin iyo hadday noqoto maada ka hadlaysa dhinacii adduunyada iyo hababka u taalo dhammaan markaad isku wada geyso waa maada ka hadlaysa dhammaan dhinacyadaas oo dhan ayaa dugsiga hoose dhexe waxa la isku yiraahdaa dhamaanteed science baa lagu wada dhigtaa markaad eegto maadadu mardow dugsiga sare way sii kala bixi doontaa iyadoo yeelan doonta markaasi laamo badan laakiin si hadda waxay kulminaysaa dhammaan laamahaas oo dhan bay kulminaysaa markaad eegto haddii aynu bilaabayno maadadaasi waxaa isweydiin mudan halkaynu ka bilaabaynaa waxaynu kasoo bilaabaynaa dugsiga hoose gaar ahaana waxaynu ka bilaabaynaa fasalka 8aad maadaduna waa science waxaynu ka bilaabaynaa ha ahaato fasalka 8aad ha ahaade laakiin wuxuu sii leeyahay cutub gaar ah oo cutubka koobaad markaas cutubkaasina wuxuu noqonayaa barashada caafimaadka markaan ka hadlayo inagu gudaha u sii gali doono muxuu yahay barashada caafimaadku hadda waxaynu doonaynaa inaynu ogaano barashada caafimaadku muxuu yahay barashada caafimaadka waxaynu kaga hadlaynaa runtii markaad eegto caafimaadka laftiisii lama baranayo laakiin waxaa la baranayaa qofka aadamaha caafimaadkiisu inuu khalkhal galo waxa keena waxyaabaha qaar baa sababa marka wixii keenayay inaynu barano si aynu u ilaalin karno markaasi caafimaadkeena taasuu mawduucu dhamaantii ka hadlaya markaasi marka wuxuu ka hadlayaa barashada caafimaadka markaad eegto cutubkan intaynu ku guda jirno ardayga waxaa laga rabaa ama qof kasta oo baranaya maadadan waxaa laga rabaa inuu gaadho yoolalkaasoo u saamaxaya inuu yacnihii fahan guud ka haysto ama fahan gaaraba ka haystaba dhammaan cutubkan ayn ka hadlayna waxyaabaha laga doonayo markaasi markaad eegto cutubku marka uu dhamaado ardayga waa inuu yacnihii qaban karaa ujeedooyinkan soo socda number 1 waa inuu gaari kara macnihii number 1 ardaygu waa inuu magacaabi karo cudurrada la isku gudbiyaa maxay yihiin cudurrada inta badan leeyahay waa la isku gudbiyaa waayo cudurku qofku ka taga xanuunkii qabo qof caafimaad qabo taga yani maxay yihiin sababkay ku gudbaan sidee qofka kale ay ku gaari karaan waa inuu fahmo ardaygu sidoo kale ardaygu waa inuu tilmaami karo calaamadaha cudurrada galmada la isugu gudbiyo cudurrada qaar baa waxaa la isugu gudbiyaa xiriirka dhex mari kara lab iyo dhadig markaasi cudurrada laftooda calaamadaha lagu garto iyo iyaga laftooda waa kuwee ayaynu ku qaadan doonaa cudurradaas oo ay markaa ka mid yihiin tusaale xabadda jabtida iyo xanuunka loo yaqaano iriska ama HIV iriska loo yaqaano markaad eegto kelmadda HIV waa wixii keenaya xanuunka irisna waa xanuunka laftiisii weeyaan markaasi kaasaynu ku qaadan doonaa waxaa kale oo halkan runtii ujeedada saddexaad ee laga raba ardayga ay tahay inuu garto siyaabaha looga hortago xanuunada sare ku xusan ama sare ku qoran xanuunada sare ku qoran oo ah xanuunada galmada la isugu gudbiyo oo iyaguna qayb ka mid ah xanuunada dadku dhexdooda yacni isaga gudba yacni calaamadaha inta badan amaba siyaabaha looga hortagi karo waa inuu ardaygu yaqaano yacni taasa iyaduna maxay ujeedada saddexaada ujeedada afraad waxay leedahay ardaygu waa inuu sifayn karo sida cudurrada galmada la isugu gudbiyo yani waa inaad sifayn karto ood mawduucaasi yacnihi si waadixa u kala dhigi karto markaad mawduucan barato ama cutubka aad barato yacnihi cudurrada la isugu gudbiyo inta badan galmada inaad yacnihi sifayn karto ka bixin karto maxay inta aqoon ku duugan oo dhan dhammaanteed aad waadixin karto ardaygu waadixin karo waxaa sidoo kale halkan ku jira inuu ardaygu tilmaami karo cudurrada inuu tilmaami karo cudursidayaasha sida bacteria iyo viruska markaad eegto ardaygu waa inuu tilmaami karo cudursidayaasha keena xanuunkan laftiisa iyo kuwa kaleba oo ah markaasi bacteria iyo virus labadaba bacteria iyo virusku labaduba waa xanuun sidayaasha ama waa kuwa xanuunada qaada ee keeni kara qofka inuu maxay xaaladiisa caafimaad ka tago oo xaalad kala galo waxaa kale oo ka mid ah ardayga laga rabaa inuu taxo maandooriyaasha bulshadu adeegsato maandooriyaashu dhinacay doonaan ha ka yimaadaan kelmadda markayn maandooriye ka hadlayno wax kale maaha waa wax ka bedela qofka bilaadanka habkii uu u shaqaynaya caadiga ahayd geeyana xaalad ka duwan xaaladii caadiga ahayd markaasaynu odhanaynaa waa maandooriye isagoo markaa u dhaqma hab ka duwan habkii qofka bilaadanka yacnihii looga bartay amaba
habkii yacnihii saxda ahayd isagoo ka tago markaa u bedelma ficilaad kala soo bandhiga. marka maandooriyuhu muxuu yahay, maxaa keeni kara qofku inuu xaaladiisii iska bedelo xaalad kala galo, ayay yacnihii la rabaa ardayga mawduucan inuu si wanaagsan u fahmo. waxaa sidoo kale la rabaa ardayga waa inuu sharaxi karo maandooriyaha halista ugu markaad eegto ardayga waa inuu sharaxi karo maandooriyuhu halista uu ku yahay qofka la qabatima iyo bulshada labadaba. waxaa jiri karta qof baa maandooriyaha qabatima, maandooriyaha uu qofku qabatimay waxaa loo baahan yahay markaad eegto ardaygu inuu fahmi karo qofka maandooriyaha qabatima iyo dhibaatada uu ku keeno, sidoo kale bulshada dhibaatooyinka ay ku keeni karto oo ah markaasi ficil ama qofkii qabatimay ka iman kara amaba qofka qiiqa iyo waxyaabaha uu sameynaya kasoo bixi kara inuu qofkii kale caafimaadkiisa wax yeeli karo. marka taasaa la rabaa ardaygu inuu maxay ayadana si wanaagsan u fahmi kara mar dhow. ardaygu sidoo kale waa inuu barto maandooriyuha caafimaadka waxyeela, yani waa inaad fahansan tahay maandooriya maxaa la yidhaahdaa, maandooriya waxaan ahayna muxuu yahay, labada waa inaad kala fahansan tahay. ardaygu hadduuna kala fahansaneyn labadaasina waxay noqonaysaa wax badan inay iskaga dhex jiraan. marka mawduucu wuxuu kala waadixin doonaa inay kala fahmo ardaygu maandooriyuhu muxuu yahay iyo muxuuna ahayn labadaasi. sidoo kale ujeedada ugu dambaysa ardayga la doonayo inuu gaaro waxa weeyaan waa ardaygu waa inuu garto inaan la adeegsan karin daawo aanu dhakhtarku qorin. yacni waxaa dhacda bulshada dhexdeeda waxay isticmaalaan daawooyin intaas runtii aan loogu talagelin qofka caafimaadkiisa oo wax yeeli karaysa. markaasi ama xanuun yahay iskaga baabi'iyo ama siyaabo kale ha u isticmaale dawo aan dhakhtar qorin oo dhakhtar kasoo bixin yacnihii inaanu qofkii isticmaali karin. markaasi mawduucu wuxuuna leeyahay ardayga waa inuu fahmi karo naftiisa, waa inuu ka bilaabi karo dawo aan dhakhtar qorin inuu iska isticmaalo. sida oo kale dadka waa inuu gaadhsiin karo amaba uu ka hor istaagi karo dhibaatooyin uga iman kara dawada aan dhakhtarku qorin oo qofku iska isticmaali karo. intaasoo ujeedooyin buu mawduucu noqonayaa inaynu mar dhow aqoonsano markaynu mawduuca dhamayno haddii alla idmo. markaad eegto waxaynu ku bilaabi doonaa cudurrada laysku gudbiyo. cudurrada laysku gudbiyaa maxay yihiin? waa cudurrada qof xanuun qaba ka taga oo qof kale oo xanuun aan qabin runtii ama caafimaad qabo aan u gudbaa. siyaabaha ay ugu gudbayaan ayadoo ay kala duwan tahay. qaar baa ku gudbi kara neefta qofka oo yacnihii neefsigii uu neefsanayay ku gudbi kara, qaar baa salaantii iyo istaabashadii ku gudbi kara, qaar baa galmadii iyo xidhiidhkii dhadigii labka dhex marayay ku gudbi kara, qaarba nooc bay ku gudbi karaan, qaar baa biyihii ku gudbi kara, qaar baa cuntadii ku gudbi kara. yacni isku soo wadageeyo dhammaan xanuunada laysku gudbiyaa maxay yihiin. marka waxaynu kala inagoo kala saarsaari doona, laakiin xanuunada laysku gudbiya ayaynu ku qaadan doonaa. markaad eegto cudurrada amaba xanuunka hal qof uu gudbiyo qofka kale ayaa waxaa loo yaqaan hal qof uu gudbiyo qofkaasoo markaasi xanuunkii qabay uu gudbiyo qof kale oo caafimaad qabay ayaa waxaa loo yidhaahdaa maxay cudurrada la kala qaada ama cudurrada la iskugu gudbiyo. kaasaa loo yaqaana markaasi. siyaabaha uu gudbayna waa tan hadda imaka sharaxaynay. markaasi markaad eegto cudurrada laysqaatiyo waxaa inta badan keena noolayaal aad u yaryar oo la yidhaahdo jermis. xanuunadan inta badan habka uu ku gudbayo iyo way kala duwan tahay waxa keenaya. markaad eegto habka uu ku gudbayo waa habkii saamaxaya inuu xanuunka qofka ka gudbo uu qofka kale u gudbo. waxaana keenaya ama hawadii amaba taabashadii amaba cunadii ama biyihii ama qofkii galmadii iyo xidhiidhkii dhadigii labka dhex marayay inay keeni karto. laakiinse markaad eegto wixii xanuunka laftiisa keenayay waa kaasi habka uu gudbayay, laakiin wixii xanuunka keenaya waxaa loo yaqaana jermis baa la yidhahda. jermisku wuu badan karaa, marka labuu noqon karaa inta ugu faraha badan leh. waa jermiska loo yaqaana ama bacteria noqdaa oo noole yar oo keeni kara xanuunkii, ama wuxuu noqdaa virus. labadaas aynu si waadixa u kala qaadan doono. markaad eegto jermisyadu inta badan waa bacteria ama waa virus. sidaan hadda imika sheegayna waa bacteria ama waa virus. inta badan kuwa xanuunada keena sababi kara. markaad eegto waxaynu ku horreysiin doonaa bacteriyadu maxay tahay. bacteriyada iyada lafteedu maxay tahay? bacteriyadu waa noole yaryar oo ilima aragtay ah taasoo kamid a khalqi yacni noolayaasha yacni inagula nool kolba halka sabada aynu ku nool nahay ama deegaanka aynu ku nool nahay, kuwaasoo lagu qiyaaso badigooda inta badan inayna xanuuna sababin, laakiinse xad yar ayaa xanuuna sababi kara. kuwaasoo ujeedada ay xanuunka u sababayaan ay kow ka tahay iyagu waxay doonayaan sida bil-aadankii iyo noolihii kaleba uu quudanayo wax inay u quutaan. quudashada ay wax quudanayaan inay ku keento caabuqa jidhka, kadibna ay muxuu u bilaabo jidhku markaasi xanuun. qaar xumad kugu keena, qaar yacni jidhkaaga meelo badan inay bukoodaan keena, qaarba meel inay kaa keenaan, laakiinse ay kamid tahay waxyaabihii xanuunka sababay. ayadoo ujeedadeedu tahay waxay quudanaysay oo u doonanayso jidhka gudihiisii amaba dibadiisii labadiiba ay kaga dhici karta markaasi.
bacteria markaad eegto waa noolayaal aad u yaryar oo ilma aragtay kelmadda ilma aragtay marka aan leenahay isheena caadiga ah markaynu ku eegno waxaynu arki karno maaha waxaa dhici karta gacantayda imaka inay intaas soo mirtaa saaran tahay laakiin si aanan arkaynin haddaan arkay inayna dhacdeen qofka bilaadanki inuu gacantiisa ama jirkiisa intiisa kale inuu ka saso ama uu runtii xamili waayo waxyaabaha dul saaran markaasi laakiinse waxay noqotay noolay aad u yaryar oo ilma aragtay taasoo qofka indhihiisan qaawana caadiga aanu ku arki karin ilaa uu ku eego markaasi weynayso uu ku eego mooyaane markaad eegto halkii milyan ee bacteria yani halkii milyan markaad leeyahay waa 1 eber yani hal milyan halkii milyan ee bacteria wuxuu leekaan karaa hal bin oo yani kii yaraa la gelinayay yani dharka lagu xidhanaya binkii yaraa dhuubnaa intaas soo dhan hal milyan oo bacteria oo isku yimid ayaa muuqaalkeedu wuxuu leekaan karaa maxay halka bin ee madaxa yani inta badan lagu xidho gaar ahaan dumarku ay ku xidhaan marka wuxuu leeyahay hal milyan oo bacteria waxaa laga yaabaa ama ay leeyihiin madaxa biinka bacteriadu waxa laga dhaxela markaasi marka madaxa biinka ay leeyahan kara xajmi ahaan markaad eegto marka aad bay u yaryar yihiin markaad eegto hal milyan oo madaxa biinka leeyahan kara aad bay u yaryar waad garan kartaa bacteriada hadda hadaynu ka sheekeynay iyada iyo qeexitaankeeda bacteriada halkee laga helaa taas ay isweydiin mudan bacteriada waxay meelaha laga helo waa meelahan markaad eegto waxaa laga heli karaa mindhicirada amaba sanbabada afka iyo sanka dadka intaba way ku jirtaa waxa isweydiin mudan haddii ay meel walba inaga jirto ama midhicirkeena ha ku jirto ama sanbabada ha ku jirto ama ha ku jirto sankii ama afkii ha ku jirtay maxay markiiba xanuun u sababi weyday watan hadda ka hor idin sheegay inta ugu faraha badan la bacteriadu xanuun ma sababto waxay noqotaa mid jirka la shaqeysa markaad si u eegto laakiinse marka uu dhaco jirku inuu caabuq keeno oo waxyaabo dhibaatooyin fara badan la soo dirsaan ayaa waxaa dhacda inuu jirka ay ka dhex iyagu laftooda ay ka dhex bilaabaan ay ka dhex toosaan oo ku keenaan caabuq intii ka badan laakiinse intooda badan waxa loo yaqaanaa waa maxay waa kuwa aan khatar lahayn intooda khatarta lana waa intan markay kusoo gasho uu jirku markii la tacaalayo marka haddii ay khatar lahaayeen kuwa mindhicirka ku jira ama kuwa sanbabada ku jira markiiba xanuun bay kugu sababi lahayn marka inta badan sanbabada laga helaa waxaa laga heli karaa mindhicirka afka iyo sanka dadka intaba way ku jiraan ayagoo markaasi khatar aan lahayn oo maxay ayna khatartoodu ayna badnayn sidoo kale waxaa laga heli karaa xawayaanada saxaradooda yani waxay soo raacdaa xawayaanada saxaradooda iyadoo kasoo raacaysa hadda kahor waataan imaka mawduuceena qodobkeena koobaad ka hadlaya mindhicirada inay ku jirto cuntadu markay mindhicirada soo baxaysa inta qashinka noqoto markay dibadda usoo baxaysa saxarada loo yaqaana ayay soo raacdaa markaasi intaasay kamid tahay markaasi waa laga heli karaa saxarada inay